kulanto caan wanaagsan kusoo dhawaada channelkan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha xan suuq kala iibsiga xogii ugu dambeeyay maxaa la yiri isbuucii soo dhamaaday ciyaarihii xalay dhacay oo kale Everton oo gool dar ka qaadatay Leeds United, Real Betis oo barbaro gashay, sidoo kale boqolkii oo naadiga kubadda cagta Borussia Dortmund gool muhiim ay gaartay ciyaarta caawa u dhaxayso Cristiano Ronaldo iyo Benzema. maxaa lagu yiri bandhig xumada كاسة مانشستر يونايتد أرسنال sidoo kale Arteta guushi oo ka gaaray maxay u dhigantahay Big Six ka naadiyaasha lahaa wuxuu ka haystaa bandhig caadi ahayn. sidoo kale 239 kulan oo u dheelay naadiga kubadda cagta Everton xalay toole waa uu ka hor imaaday. waa kuma xidigaas safashadii Grealish wax walba ugu baahan tahay Xavi Simeone. sidoo kale macallin Ancelotti oo ku dhawaaqay liiska xidigaha xulka qaranka Brazil September kulamada dheeli doonaan yaa laga tagay ciyaartoy muhiim oo laga tagay. sidoo kale Messi oo laga wacay xulka qaranka Argentina. sidoo kale ciyaarta Chelsea iyo West Ham United u dhaxayso oo Albiter hersare loo dhiyay waa kuma Albiterkaas. sidoo kale ciyaartooyda ugu qiimaha badan Real Madrid oo la soo saaray yaa hogaaminaya la leeyahay. ku soo dhawaada channelkeena hadduu ku cusub yahay Xaaji Official fadlan subscribe noo saar, like siin, share garay. waa ka mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan. soo dhawaada saaxiibayaal, waxaa hal iyo laba ka taaban doona kulamadii la ciyaaray naadiga kubadda cagta Everton iyo Leeds United ayaa xalay ciyaaray kulankooda ugu horeeyay ee Premier League ahna kulankii ugu dambeeyay ee toddobaadka isbuuca koowaad ee horyaalka kubadda cagta English Premier League. waxa ay kusoo dhamaatay kulanka ismarawaa kadib ciyaarta 84 daqiiqo maray gaartay xidiga cusba Leeds United ee soo gadatay Nimecha ayaa 84 daqiiqo kubad riyoore ahayd sabab taabsi Everton ayaana gooli waxba ku adkaatay waana arkay marka. sidoo kale naadiga kubadda cagta Real Betis ayaa barbaro lagu celiyay kadib 81 daqiiqo gool ay ku hogaaminayeen LGA goolka barbara sidaasna hal iyo hal loo kala baxay. sidoo kale boqolkii ciyaartii u dhaxaysay Borussia Dortmund ayaa iyadana hal iyo eber ku adkaatay kadib 39 daqiiqo oo shabaqa gaaray Garsey xidiga reer Afrika ah ayaa goolka qura ku gudubtay Borussia Dortmund dhaliye. maxaa laga bartay ciyaarihii xalay dhacay 239 kulan oo u dheelay Everton 56 gool u dhaliyay 18 caawin oo u sameeyay. ugu dambeyn xalay toole wuxuu ka hor imaaday naadigiisii walow gool uusan ka dhalinin goolna ay ka gaareen Everton marka inaba caadi maahan. Calvert-Lewin waa xidiga ka hadlaya. sidoo kale waxaa la arkaa isla kulankaas Jack Grealish oo sameeyay safashadiisii ugu horeysay ee Everton asigoo wax asaasna ka qabanin laakiin ciyaarta inaba caadi maahan. Jack Grealish style cusub ayuu ku soo galay asigoo nambarkii 18aad ee nambarkii hore ee Rowan McCronie xirtay ciyaartan bedel ku soo galay. sidoo kale waxaa laga bartay ciyaarihii bukolka Garsey shawaqa furtay season kale oo cajaa'ib leh inuu qaato ayuu rabaa maadaama seasonadii hore ku kas jirnay in bandhigiisii high level ahaa jiray ninkan inaba caadi maahan. sidoo kale waxaa laga soo qoray Leeds United iyo Sunderland ayaa shabaqa gaareen ayaa leeyahay inkana shabaqooda ilaalsadeen. Leeds United gool waxba Everton u adkaatay halka Sunderland ay 3 gool waxba ay ku garaacday naadiga West Ham United inaba caadi maahan. maxaa ku qiimeysay Sunderland iyo Leeds United sanadkan waxaa loo saadaalinayaa inay heerka labaad mar kale u laaban karaan laakiin guulo muhiim ay ka gaareen kulankooda furitaanka ee English Premier League. sidoo kale kulanka caawa Al Nassr iyo Al Ittihad waxaa leeyahay inaba caadi maahan. kulankaas waa la sugi lahaa waxay isku baxeen ilaa 6 kulan 4 kulan kamid ah Ittihad ayaa badisay halka 2 kamid ah ee badisay Al Nassr marka 6daas kulan ay isqabteen si Cristiano Ronaldo Saudi Premier League oo imaaday. Cristiano vs Karim Benzema waa arki doona caawana wixii ku dhamaatay ciyaarta. sidoo kale laba ciyaaryahan kaliya ayaa la dhahay 30 gool oo aan wax riyooro ku jirin Premier League ka dhaliyeen tan iyo 2023. waa kuma ciyaaryahanadaas waa Chris Wood oo ka tirsan Nottingham Forest iyo Mohamed Salah oo asagana ah xidig reer Masaari ah oo ciyaarnay kubadda cagta Liverpool. marka waxaa leeyahay 30 gool oo rigoor la'aan ah ay ka dhaliyeen English Premier League tan iyo 2023. sidoo kale Cristiano Romero inaba caadi maan waxaa leeyahay arbacadii waxaa loo magacaabay Tottenham Hotspur
kabtankeeda waa uuna dhaliyey subarkaabaha PSG u baxayeen. sidoo kale maalintii sabdida ahayd wuxuu ku guuleystaa leeyahay guushiisii ugu horeysay ee English Premier League maadaama goolal fiican 3 gool waxba ay ku adkaadeen. sidoo kale maalinta Isniinta ahayd oo shalay ahayd wuxuu siixay Tottenham Hotspur heshiis cusub ay u siixay oo gaaraya ilaa 2029. inaba caadi ma Cristiano Romero waa daafac u fadhisaa leeyahay. sidoo kale wararka waxaa ka mid ah Maxamedu Kudus Rangers iyo Ketika ayaa loo arkaa heshiisyada lagu guuleystay ee suuqa kala iibsiga laga sameeyay English Premier League. sidoo kale waxyaabaha soo cusboonaada ayaa ka mid ah Xavi Simeone oo asigana markaan aad iyo aad ugu dhow ku beerista Chelsea asigoo wax walba u sameey doono si uu beer la naadi kubadda cagta Chelsea naadi walba lacag wadatana yiri maya Chelsea baa doonaya. sidoo kale liiska xidigaha oo ciyaari karo xooga September ayaa in lagu dhawaaq la bilaabay. waxyaabihii shoog ahaa ayaa ka mid ah in Ancelotti uusan wicin Vinicius Junior xidiga reer Brazil iyo kooxda kubadda cagta Real Madrid wuxuuna yiri maya waa uu wici waaya leeyahay. sidoo kale waxaa ka mid ah Garnacho oo asigana xulka qaranka Argentina laga tagay kadib isku dhacii Manchester United asiga macalinkii asiga isku dhaceen ayaa loo saweeyay in uu macalin Scolani oo wici waaya xidigaas. sidoo kale Lionel Messi ayaa ah kabtanka naadi kubadda cagta Argentina oo asigana dib loo wacay hadda dhaawac ka soo kacay waan la arki doonaa. sidoo kale wararka waxaa ka mid ah kulanka u dhaxeeyo naadi kubadda cagta Chelsea iyo West Ham ayaa loo magacaabay Major Olivier si uu u hogaamiyo kulankaas Premier League ah. marka inaba caadi maahan waa Albiter Shub marka waxaa leeyahay soo dhawaada. sidoo kale kulankaas ma arki doonaa Enzo oo ka tirsan naadi kubadda cagta Chelsea ayaa amaan kala dul dhacay xidiga daafaca dhexe ee naadi kubadda cagta Liverpool Virgil van Dijk oo yiri the best center back ever of all time. ingiriiskaas waxaa marmaro soo fagtaa lagu qaata waa daafac ugu fiican ee dunida waqtigan hadda la taagan yahay ayuu yiri marka inaba caadi maahan. sidoo kale Chiesa iyo wakiilkiisa ayaa ku dhawaaqay in go'aankooda uu yahay sii joogista naadi kubadda cagta Liverpoolna ay daneynaysaa ninka inay sii haysato ilaa ciyaaryahan kale ee ka helayso asiga iyo Slot ayaa isku haystaa leeyahay labada marka inaba caadi maahan. sidoo kale wararka waxaa ka mid ah Didier Drogba oo mar wiilkiis la sheekeysanayo ayaa yiri wiilkaygu yaa ka taageertaa yaa favorite ku ah ciyaartooyda kubadda cagta meeshii ani ka sugaa inuu dhaho adiga ciyaaryahanka ku daydo wuxuu iska soo jaray Thierry Henry waxaa sidaas dhahayo Didier Drogba. sidoo kale 2023 ma maleysan kartid in ciyaartooydan maanta 2025 heerkan ay gaari doonaan u tartami doonaan ku guuleysiga Ballon d'Or waa Ousmane Dembele Rafinha iyo Lamine Yamal oo markaas weerarka Barcelona hogaaminayeen laguna qasaaray Xavi Hernandezna oo wax ka soo saari waayay. haatana waa u tartamayaasha saxda Ballon d'Or saddexda ugu sareyso waa Ousmane Dembele oo loo badinayo Lamine Yamal oo booska labaad iyo Rafinha booska saddexaad. inaba caadi maahan waayaha wax walba ay ku tusaan waan arki doonaa meesha ku dhameystaan waayahoodii u tartamista Ballon d'Or. sidoo kale Cristiano Ronaldo ayaa lagu soo waramayaa inuu wacay Kingsley Coman kana dhaadhiciyay qorshaha Al Nassr si uu u imaado. inaba caadi maahan waa arki doonaa marka meesha ku dambeey doonto inuu imaado Coman bandhigiisina waa la arki doonaa wax wal marka waxay noqon doonaan heer sare. sidoo kale naadi kubadda cagta Real Madrid ciyaartooyda ku sugan ee qiimahooda ugu sareeyay ayaa la soo saaray waxaa hogaaminayo kale Mbappe oo 180 milyan ku qiimeysan. sidoo kale Jude Bellingham oo asna 180 ku qiimeysan. sidoo kale Vinicius Junior oo 170 milyan ku qiimeysan. sidoo kale Valverde oo ku qiimeysan 130 milyan halka Rodrigo xidiga baxsadka ka daneyna ku beerista Manchester City oo 90 milyan oo ku qiimeysan yahay. sidoo kale Arteta iyo Big Six ka maxaa kala haysta naadiyaasha 6 naadi ugu xooga badan Premier League iyo Arteta waxaa leeyahay si oo unbeaten ayuu yahay 22 kulan oo la ciyaaray Big Six ka 13 waa uu guuleystay 9 jeerna
bareejo ayuu galaa leeyahay wax guuldaro ah ma uusan kala kulmin naadiyaasha Big Six-ka lagu magacaabo. Sidoo kale 25 ciyaar ee u dambeysay ee Manchester United Old Trafford ku dhashay English Premier League inaba caadi maahan, guuldarooyin badan ayay qaateen. 9 guul ayay ka gaareen ayaa leeyahay 25kaas kulan ee English Premier League Old Trafford ku dheeleen, 5 bareejo ayay galeen, 11 guuldarona waa ay qaateen, inaba caadi maahan. sidoo kale Erling Braut Haaland ayaa lagu soo waramayaa in 147 kulan oo u dheel Manchester City 147 gool iyo caawin ku lug leeyahay, inaba caadi maahan. Haalandna waa suxuunta duusho. sidoo kale William Ruto ayaa lagu soo waramayaa in uu ku dabaaldegay kulan guul ay ka gaareen Zimbabwe. marka Ruto caadi maahan, waxaa leeyahay ninkaas kulankiiba 1 milyan 700 intaas kun ay u damaano qaaday ciyaartoydooda. haatanna waxaa la leeyahay kulanka soo xigo waxay u bixi doonaan Madagascar markay tahay taariikhda 22 Agoosto saacadana 11 saac dhanka geeska Afrika. waa arki doonaa Madagascarna haddii ay ka gudbi doonaan. sidoo kale wararka waxaa ka mid qiimeyn lagu sameeyey Cherki iyo sidoo kale Wish xidiga Liverpool iyo xidiga naadi kubadda cagta Manchester City. waxaa leeyahay seasonkii la soo dhaafay waxay noqdeen ciyaaryahanno horyaaladooda toobka ah. Cherki oo Lyon oo ciyaareedkii la soo dhaafay 32 gool oo caawin iyo gool iskugu jirta ayuu ka sameeyey, halka Wish oo Bayer Leverkusen ahaana seasonkii la soo dhaafay 31 gool oo caawin iyo gool dhalin iskugu jirta ayuu sameeyay leeyahay, inaba caadi maahan. marka waa ka Wish iyo Cherkina bandhigooda erkaas ayuu maraa inkan. sidaas iyo amaano Allah. haddii channelkeena uu ku cusub yahay fadlan subscribe noo dheh, like noo saar, share garay. waa kaa mahadcelinaa daawashada muuqaalka.